السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدة الصوماليات مركز جوجتان أدون كدع الكيسة وديسة دبديسة ونذ السلامة وولاشين آمنة لك وفشيال إن سلام كدب ولا ليال حرام ما أنتنا كيرا هالله إن فرحية عبسية الدنيا ذا إلهي وحا وقدر نقفك بنا أنمي يسوون دينتي وحا كفهن سنين inuu la yimaado dalkii hooyo markuu ku soo noqdo quraafaad una gafo diinta islaamka haddii aqoon ayna u lahayn cilmigeedana ay lahayn inay ummadda ula timaado gabdho sidan iyo sidan laydan dhihin allah subxaanahu wa tacaala waa la ogyahay qur-aankiisa inuu dumarka ku sharfay inuu hooyada ku sharfay saddex goor inuu ka horeysiiyey aabbaha oo uu ka qiimo badnaysiiyey taas waa la ogsoon yahay ma dhaqanka soomaalida mise diinta islaamka ma sida ragga soomaaliyeed u dhaqmaan mise diinta islaamka waxaan diidayaa inay ummad aan fahansanayn diinta ay khalado iyadoo ka dhacdhacsiinayso dumarkaa la liiday horta dumarka lama liidin qaar iyaga isliiday baa jira qofka bini'aadmiga haddaad isfahmi weydaan inaad ka tashato ayaa loo baahan yahay inaad daba orodo oo aad daba silicdo looma baahna markay dhaqan noqoto ragga soomaaliyeed run ahaantii way dayaceen awlaadooda iyo qoysaskooda waa la ogsoon yahay taasi waa dhaqan xumada iyo jaahiliyadda aanu ku soo kornay ayaana ragga badanaa ay ku khaldameen laakiin nin ahludiin ah oo ilaahay yaqaana oo diintu dhab ka tahay oo xaqa yaqaana wuu yaqaanaa hooyada iyo gabadha heerka ay maaragta islaamka ay ka taagan tahay ha ka dhaadhicin dumarka intaad u timaado kontolley baa laydin yiri oo sidan baa laydin yiri haddaad dood qabto culummada islaamka ah la dood haddaad dood qabto farxiyo cabsiyaay haddaad dood qabto muxuu ahaa culummada islaamka la dood oo wax macquul oo caqligala la imow wax macquula la imow ha la imanin waa laydinka hoosaysiiye iyo maanta maraan waraysigeeda dhegeysanaya waxay tiri haddii ilmuhu uu handikaab yahay ama macnaha ilmuhu uu wax ka qaldan yihiin waxa la jooga oo inta badan u adkaysi badan waa hooyada aabbaha wuu ka tagaa dee ilaahay subxaanahu wa tacaala waa hooyada 3 goor fadilay 3 goor buu aabbaha ka fadilay oo yiri ummag markuu ku yiri ninka yaa xaq ay gole markuu rasuulka calayhi salaatu salaam ku yiri ninka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu oga hooyada inay uga adkaysi badan tahay ugana naxariis badan tahay awlaadda maaha inaa bulshada ula timaadado ka dhaadhicsiisid marka duruufi jirto ninkuu saasuu sameeyaa taasi waa dhaqan waliba waa dhaqan xun oo aan kugu raacsanahay waa dhaqan aad u xun inuu ninka reerkiisii awlaadiisa u adkaysan kari waayo hooyadana u adkaysato laakiin taa diinteenna maaha farxiya yay kaa khaldamin diinteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gabadha sharfay oo qiimeeyey ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala suurad dhan oo dumarkaa ku soo dejiyey suuratu nisaa baa jirta suuratu rijaal ma jirto si dumarka keliya looga hadlo waxaa la sheegaa xitaa gabadha markay ninka kala tagaan inay waajib ku tahay una wanaagsan tahay inuu gabadha reerkeeda u daayo ilaa inta ciddada u dhammaynayso inuunan dhibaataynin waa sida loo qiimeeyey haddii raggu ay dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabada ay raaci lahaayeen waa run waan kugu raacsana waxyaabo badan ma khaldameen marka farxiyay waxa kaa khaldan dhaqan iyo waxa isaga kaa khaldan diin iyo dhaqan baa isaga kaa khaldan dhaqan ahaan waa khalad dhaqan ahaan khaladaad baa lagu jiraa qaladaad badan bay ragga Soomaaliyeed sameynayaan hooyooyin badan bay awlaad ku dayaceen uma adkaysan karaan duruufaha oo ma sameeyaan taa waan kugu raacsanahay laakiin inaad la soo istaagtid maxaa konton laydin yiri maxaa laydin leeyahay waad ka hooseysaan ragga aayad quraana oo dumarka ka hooseysiisay ragga ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri bini aadmigaygu waa isku mid ilaa bitaqwallah baa lagu kala duwan yahay taqwada ilaahay baa lagu kala duwan yahay laguma kala duwano tananaaga laguma kala duwana farxiyaay arrintaas ayay kaa khaldamin ilaahay aayaadkiisa been ha ka sheegin quraanka ilaahay been ha ka sheegin ha u gafin
إن آياتك إلهي سبحانه وتعالى سورغي هكذا دعين وحما قرطة يا إنت أن وحما قرنينين إن لليدي دمرك لما ليدين دمرك دين تن الإسلام كوا كشر فيه لكن دقن كالليدي ميدان كوكو راسنا هي باجرتا دقن كالليدي دقن أهان إن ويل كمركو دالكي هويا جوغ اللي يرادا ورشكدا هقلين مدبقى هقلين قد قضعتها هالسمين وحن هالسمين وقرافات لآمني نبي جينينا عليه الصلاة والسلام عائشة مرضى يكون شفت انتو ككعيه بودق جري anjeerada subaxii tooxooxda intuu sii qoosho buu salaada intuu taga markuu soo noqdo u dibi jiray haddii ay raacayaan diinta islaamka waa sax wax badan ma xumaadeen farxiyaan taasi waa dhaqan halaabay laakiin dhaqanka halaabay iyo diinta isaga ka qaldamin walaal haddii aad dood qabtana culimada islaamka waxaan ka codsanayaa gabadhan dalkii ku noqotay run ahaantii khaladaad badan bay dad aan wax magarata aan ka dhaadhicinaysaa inaad la doodaan hargeysa ma aqaan hadda kor waxaan xasuustaa in gabadha la yiraahdo fanaanada la yiraahdo nasteex indho sida u eriyadeen ay ugu diideen inay dalka gasho sidaan fanaaniintii kale ayna qaawanayn inay jilbaab xidhan yihiin oo kale barwaaqa joogto sida u qaawantahay ilaahay ogiyaa fanaaniintii kale waxa jooga geeska Afrika oo si u qaawan yihiin ilaahay ogiyaa ninka la yiraahdo Allah u naxariistay marxuum Awke muxuu ku yiri barwaaqo fanaanada barwaaqo quruxdaada lama qaawiyo waa la qariyaa dadkii noocaas oo hargeysa jooga oo riwaayadaha ka dhigaya funaanadaha muxuu ka dhigaya heesaa lama hadlin nasteexa waxa loola hadlay waad qaawantaa nasteexa qurbayba ka timi qurbayba ku soo maaragtay ku soo korta haba khaldanaato laakiin kuwa jooga ma jilbaab bay xiran yihiin mise quraan bay akhrinayeen waxaan ula hadlay hadalkan u wadaa wasiirka diinta iyo awqaafta khaladaadka uu qabanayo waxa kamida oo loo baahan yahay inuu qabto qoftan oo kale farxiyo cabsiyo oo kale waa inuu qabtaa waa inuu la hadlaa hadday dood qabto doodda waa inuu la fadhiistaa maaha in ummad masaakiina oo waxba fahansaneen laga dhaadhiciyo dumara waa laydin liiday waxa waa waxyaabaha badanaa dumarka lagu soo celceliyo qofka bini'aadmiga isaga iskaraama seejiya ha iskaraama seejinin hadduu ninka kula dhaqmi waayo hadduu ninka ku hagaajin waayo hadduu ninka wax kuu qaban waayo ka danayso dantaada ka raaco caqli la imo maskax la imo tad meel fadhiisatay ha ooyin marka dhaqan halaabay oo run ahaantii Soomaalidu waliba aad number 1 ugu yihiin ay ragga Soomaaliyeed aad reerahooda u dayaceen qoysaskoodana u dayaceen 80% aan dhihi karo ayay ka hadlaysaa farxiyo diin kama hadlayso waayo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dumar iyo rag baad kala tihiin oo dumar oo hooseeyo cagta hoosteeda hal idin geliyo Ilaahay dameeru ku yiri ma sheegi karto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayadaas meelu kaga yiri ma sheegi karto farxiyo إلهي سبحانه وتعالى وحو شيغ بني آدم إنه كوكل دوين تقوى إلا بتقوى الله إلا وكل دوين أيو إلهي شيغ لكن مردهن دمرو واضح وصيسان دمرو كنتن كاساتين دمرو كناتين يضو كنتنا أهيان نينك مسؤول لو قدك مسؤولية دا معني هذا ما إنه مسكح هذا وضع قبصده مسؤولية دا وحا ويان وحا والبو أدق إنه إسكا قدك كرم إنه بنانكي كسو شقين كرم حياب بدنا واحد ترى أنا قد دمر كنتر واحد ونقنينا لأنه واحد وحياب دمر كبا سوقات شير بقولي كوجو سوقلي تصارن كسينا يا فرحياي دمر كأنت بدن برمبرير بيكبقان برمبرير بيكبقان نكون أساس يديبك وقبتها ما فهمتي ساس وحيوان كيسقوا أول كينا أتكيس جالس اللوجد اللي يمرك اللي يقول لي نكوا بقلة لوجا مد الله إنه كعقل بدني هاي لوجا مد الله إنه كسر أيوه looga dan lahaa inuu ka qiimo badan yahay laakiin waxa looga daleeyaa inuu waxyaabo badan uga adkaysi badan yahay waa ninka ragga ee wax garadka ah waa ninka ragga ee aqliga u saaxiibka waa ninka ragga ee diinta ku dhaqmaya waa ninka ragga ah ee islaamka iyo diinta fahmay ma aha ragga Soomaaliyeed 80% waxay maanta ku jiraan rag maanta u adkaysan waayo nolosha rag maanta awlaadi dayacay rag maanta reerkoodii aan ogeyn rag maanta ubadkoodii aan ogeyn rag maanta noloshooda aan waxba ka ogeyn ayaad ka hadlaysaa laakiin diinka ma hadlaysid waa inay isaga ka saaranta waa labadooda waa inaad kala saartaa farxiya kala saar diinta iyo dhaqanka waliba dhaqan xun kala saar laakiin diintu waa diinteeni qaaliga ahayd waa diintii gabdhaha sharaftay waa diintii ka dhigtay gabadha in sida boqortooyo loola dhaqmo gabadha marka lagu leeyahay banaan bay u bixin fadhigeeda cuntada loogu keenaa la yiri waa sharaf la sharfay inaan maanta bacweyn jiidno oo gacmuhuna dheeraadaan diinta deeno ma fasaxinba
in gabadhu ay soo adeegto suuqa lagu dhibaateeyo ama lagu aflagaadeeyo ama culays ay marto diinteenna way ka hadashay marka lagu leeyahay ninku mas-uul weeye bannaanka ayuu ka soo adeegayaa rijaalu mas-uulu can raaciyatihi marka lagu leeyahay waa warkaan oo kale hadduu ninku diintu ku dhaqmayo weeyaan in gabadha fadhiga loogu soo adeego gurigeeda loogu keeno iyadana awlaadeeda iyo nolosheeda ay maarayso wasiiru daakhiliya iyo wasiiru khaarijiya kala yihiin ninka iyo naagta dhabta u dhaqmaya ee sida xaqa u dhaqmaya laakiin maanta gabadhii Soomaaliyeed wasiiru daakhiliya wasiiru khaarijiya labada way noqota hadday banaan noqotan iyada ka soo shaqaynaysa hadday gudan noqotan iyada ka soo shaqaynaysa oo taas waa khuraafaad macnaha waa qaladaad dhacay fahmaysaa farxiyaay taasoo kale waad ka doodi kartaa oo waad dhihi kartaa warde raggan dumarka dayacaya awlaadda dayacaya halala hadlo waad qaldantiina sidana diinteena nama dhihin waad dhihi kartaa laakiin inaad la soo istaagto oo tiraahdid muxuu ahaa gabadha kontalla laga dhigo halkan kilkilada loo geliyay kontallaato waa laga dhaadhiciyo waa kan dee diinteena ilaahay subxaanahu wa tacaala rag iyo dumar way sinta diinta rag iyo dumar ma kuma qorna aayad quraan rag iyo dumar ma sinna kuma qorna laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadha la fadalo oo la ixtiraamo oo la qiimeeyo oo laga warhayo oo loo soo adeego oo fadhigeeda wax loogu keeno awlaadeeda la ogaado oo nolol kasto adag laga tiiriyo ayay diinteenu nafartay diinteenu waa diin qaaliya markay hooyada 3 jeer ay ilaah subxaanahu wa tacaala uu fadilayay oo umag u lahaa ila aababa ilmaha wax uu ka dhalay muxuu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo uu ixtiraamayo uu ogyahay hooyada dhibka ay u marto adkaysiga ugu adkaysanayso hadduu ilmuhu xanuunsan yahay hooya uga naxariis badan hooya ka garasho badan hooya ka aqoon badan hooya ka adkaysi badan ninka waa la ogsoon yahay habeenoo dhan ayaa u soo jeedaya ilmahaaga xanuunsan laakiin aabaha lagama yaabo inuu soo jeedo ilaa aabba ilaahay u naxariista mooyaane marka walaal macaan diinta iyo seeka khaldamin muxuu ahaa dhaqanka culimada islaamka waxa idinka baryayaa inaad gabadhan intay dalka joogta lala doodo lala hadlo khaladkeedana loo sheego waayo wax ma garatay dhunsanaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh